waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi labada caruura ee xooga igaga qaatay Maxamed Haakaar waa nin saxaaqa wuxuu ii soo wakiishay ciidan wuxuu igaga qaatay boolis saldhiga dhexdiisa lagu garaacay waxaan dawladda ka codsanayaa in caruurteeda la iga qaado labadeeda caruura bugtaan baan ku soo koriyay iyagoo bukaan haysanayay wuu nacay markay bukeen uu iska daadshay maalintii caafimaadeen ay maxaa la qurux bateen waxbarasho wax walba ku daray ayuu maxaa la ii soo xoog sheegtay. Assalaamu calaykum kusoo dhawaada Saarasan channel intaanan muuqaalka idin la wadaagin waxaan idin ka codsanayaa fadlan fiidiyoga thumbs up si haddii aadan hore subscribe u saarin nagu soo biir oo subscribe noo saar gambaleelkana furo laba jeer taabo uu ku mudoobaanayaa beelko si fiideo kasta marka aan soo dhigo uu kugu soo dhaco fadlan fiidiyoga share dhe si asxaab badan oo wanaagsan ay noogu soo biiraan aad iyo aad ay mahadsantihiin halkaan nagala socotaan waa Saarasan channel. haddaba sidaad halkan ka arkaysaan hooyadan Soomaaliyeed waxa ay sheegtay in nin ay kala tageen oo ilmaheedii qayb ka mid ah uu ka qaatay oo haddaba uga qaatay si xoog ah tacadiyo aad u fara badanna uu ku sameeyay halkaasi oo ay dhibaatooyin fara badan kala kulantay bal hooyadan oo ka waramaysa xaaladeeda halka ay ku sugan tahay iyo sababta keentay in uu ninka ilmaha uga qaato uu tacadiga ku sameeyo waatan. Assalaamu calaykum waxaan salaamayaa ummadda islaamka ah meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka imid anigu Soomaaliland baan ka imiday magacayga waa Caasha Aadan waxaa la iga qaatay caruurtaydii laba caruura waa la jir dilay saldhiga New Hargeysa ayaa la igu garaacay caruurtana waxaa iga qaatay ninkii dhalay oo la yiraahdo Maxamed Haakaar ninka bari hore aan kala tagnay 2015 bishii 7 baan kala tagnay dabadeedna wuxuu damcay inuu awlaadii iga qaato 5 baan u dhalay 5 ilaa maalintii aan dhalay ilaa iyo maxaa la yiraahdaa maanta awlaadeeda aniga haystay wuxuu damcay awlaadii inuu xoog iga qaato maxkamad baa i siisay maxkamadii maxay heeday muu tagin ciidan buu soo dalbaday ciidankiiba awlaadii laba igaga qaatay jeelka Hargeysa maxay saldhiga bariga saldhiga New Hargeysa ayaa la igu dhex garaacay caruurtii la igaga qaatay laba la igaga qaatay markaa wiiliga gabadh baa la igaga qaatay saldhiga dhexdiisa la igaga qaatay isaga ay xidhay 3 nin oo ilma adeeradii ah ayaa maxay heeday i garaacay oo habeenkii oo lili garaacayay oo caruurtii iga qaaday ninkii oo saldhiga dhex jooga ayaa caruurtii la siiyay 3 baan markaa kala soo cararay waxaan la soo hoos galay dawladda Puntland ayaan la soo hoos galay Soomaaliland waa dalkaygii maxaa la dhahdaa Puntland waa dalkaygii Soomaaliland waa dalkaygii waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi labada caruura ee xooga igaga qaatay Maxamed Haakaar waa nin saxaaqa wuxuu ii soo wakiishay ciidan wuxuu igaga qaatay boolis saldhiga dhexdiisa lagu garaacay waxaan dawladda ka codsanayaa in caruurteeda la iga qaado labadeeda caruura bugtaan baan ku soo koriyay iyagoo bukaan haysanayay wuu nacay markay bukeen uu iska daadshay maalintii caafimaadeen ay maxaa la qurux bateen waxbarasho wax walba ku daray ayuu maxaa la ii soo xoog sheegtay marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi caruurteeda labadeeda caruur inaan ninka la iga qaado Maxamed Haakaar ma xishooda weeyaan waxa weeyaan fircoonka qarniga weeyaan waxa weeyaan dalkayga aan ku dhashay ciidan markuu ii dalbaday aan xamil waayo hooyaanahay ayaan uga yimiday ana uga yimiday wadanka waana jeclay aan wadankayga mana caaya mana cambaaraynayo dadkayga dalkayga intaba waan jeclay laakiin waan u adkeysan waayo waan uga yimiday saddexda ubada ayaa la soo fakadan la soo cararay waxaan la hoos joogaa calanka Soomaaliya calanka Puntland baan la hoos joogaa ummadda Soomaaliyeed baan la hoos joogaa waxbarasho haday tahay guri haday tahay ay degaan intaba haday tahay iyaga la hoos joogaa waxaan doonayaa walaalahayga muslimiinta in caruurtaasi waxbarashadooda iyo gurigay degi lahaayeen maadaama godkii aan deganaa bahal igu galay oon ka soo fakaday aan Soomaaliland maanta aan ka soo qaxay waxaan doonayaa in caruurtaasi waxbarasho la igu daro hooyanahay ilmahayga waan nacayna kala gumaysato oo la qaybiyo naaga saa loogu qaybiyo waan diiday
labadaa uu haysto oo uu gumaysanayana insha allah marunbu ilaahay gacanteeda kusoo celin doonaa carruurtaydaasi yaa markaa waxaan doonayaa labadaa saddexdaa carruuree maanta aan gacanta ku haysto hoy ay degaan iyo maxay hayto iyo iskuul ay dhigtaan iyo noloshooda inaa layga kafaalo qaado anu waxaan ku hoos joogaa calanka Soomaaliya iyo dawladda Puntland ayaan hoos joogaa maanta shacabka Puntland dawladda intaba dawladda Soomaaliland shacabka Soomaaliland intaba waan la hadlayaa awlaadaydaasi ninka hala iiga soo qaadan lahay maxamed haakaar waa fircoonka qarniga waa nin saxaaqa waa nin maxishooda waa nin aniga oo ooridiisii ahaa oonu kala tagnay ummadda ilaahay way kala tagaan Soomaalina maxamed oo dhan bay kala tagaan inuu xidho uu ciidan ii dhiibo oo yiraahdo garaaca naagta garaaca oo carruurta iga soo qaada ma yuhuud baan ahay anigu mise Tigray baan ahay anigu axmaar baan ya naag Soomaaliland u dhalatay baan ahay anigu ku dhashay laakiin wuxuu ii habar wacday waxa weeyaan jananka ciidanka daba galan ninka la yiraahdo ayuu ii habar wacday uu in adeer ii hiili hooyo iyo ilmaheeda halka loogu kala hiilinay ma garanay anigu ma arag waligeyna hooyo iyo ilmaheedii oo laba qolo laga kala dhigayo loo kala hiilinayo dawladda Soomaaliyeed anu kuma arag magaalada cidna anu kama aqaano saddexda ciyaal fadligoodan soo galay magaalada ilmahayga waan diiday inaan tuuro oo naaga gumeystaan oo iskaga tagon magaaladana meeshaan doonaan ku noolaado waan diiday oo isku kari waayay ilmahayga inaan meel kula dhinto god hadii aan galayna inay la galaan jannada hadaan galayna inay la galaan ayaan ku tashaday anigu ya imka waxaan joogaa 2 maalmood ayaan joogaa magaalada qofna kama garanayo bes ummadda Soomaaliyeed inuu ubadkayga inaan la soo hoos galo ku korsado cidna dambi kama gelin Soomaaliland waa dalkaygii waa dadkaygii waan jeclahay qofna waligeed dambi kama gelin waligeed xabsi leeguma xidhin intaan jiray wallahi inaan wali lay xidhin ilaa ninka maxamed haakar oo xidhay oo isla galo ma halagu taxogaloomo oo naaga dabada saa uga soo riixayeen waxa nin naaga wadaya awr midna kaama leexday Soomaalidu tiraahdo ya dad baa dabada ka soo riixay ka soo qaada leh haddaba gabadhan markii ilmihii laga qaatay waxa ku dhalatay in ay ka tagto magaaladii ay ku dhalatay oo dadkeedii ehelkeedii familkeedii carruurta ay ku dhashay iyagoo dhan ay joogaan inay ka tagto oo magaalo kale oo aysan qofna ka garanaynin ay aado waa qiyaasi kartaa qofka go'aanka saas u culus dhibaatada ku keeni karta dabcan in ay rabto in ay badbaadsato ilmaheeda inta kale aan laga qaadan sababtaas ayaa dabcan ku kalifi karta in ay soo aado magaalo kale oo aysan shakhsi bini aadan ah aysan ka garanayn waalidiinta waa muhiim in hooyada ilmaheeda ay korsato run ahaantii loona daayo haddii waalidiinta waxaan jeclaan lahaa aabbayaasha Soomaaliyeed in xil weyn iska saaraan in ay ilmaha ku ilaaliyaan hooyadood haddii aysan wax awoodin xataa ay runta u sheegaan dhahaan waxaan ma ku awoodno kumana siin karno haddaad ilmaha haysato marka ay Joyce siiyaan hooyadaasi iyada ayay khusaysaa hadday dhahi lahayd markaas anigu ma haysanayo markaas Joyce buu ku yimid arrintaas balse in marka horeeto arrintaasi lagala tashado oo aan khasab lagaga qaadir ayaa aad u wacnaan lahayd waxaan idinka codsanayaa fadlan u soo duceeya gabadhaasi Soomaaliyeed iyo ilmaheeda in ay dib isu helaan oo loo soo celiyo إن شاء الله بالكريم يدنا لبعضها أي كبحضه إن فيديو جاني معناته إنتهى أيوكو أجي هاي مركلة وحن إذن حسوسنية فضلا فيديو جتامي سبسار هدي أعلن هرا سبسكرايب صار إنه صوبير أو سبسكرايب نصار قبل الكنا فرو فيديو جانا شير له وسهر سهن أويدين له إنت فيديو جان من لما يدكو كل ماينو وحن ذكرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. love you all.